بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan u mahad celinayaa ardada sida wanaagsan oo sharafta leh oo mas'uuliyadda iyo qaangaarnimadu ay ka muuqato oo u soo gudbiyay cabasho ay ka qabaan qalad ayagana laga galay waalidiintoodana laga galay mustaqbalkoodana laga galay run ahaantii arrintaas waa la soconay markii social media qishka muxuu ahay laga soo qoraayay aniga naftigeyga waa arkay runtii waxaan u haystay dacaayad iyo borobogaanayo wasaaradda waxbarashada ama dawladda ama bahda waxbarashada intaasna imtixaanku waa socday waxaan la yaabanaa haddiiba qishki uu socdo oo la og yahay oo social media uu ku jiro sababta imtixaanku u sii socday oo inta maado aad sheegtay 6 maado Soomaa intaad gasheen sababta oo u sii socday ma gara karno waxa kale haddana aanan gara karin markii la joojiyay go'aanka lagu joojiyay iyo sida loo joojiyay iyo la tashi la'aanta iyo naxariis la'aanta aan la fiirin ardadu dhibaatada ay soo mareen kulligeen ardo waa soo ahayn idinka nasiibaad leedihiin hadda nal ayaa wax ku barataan Soomaa annaga faanuus oo waliba nafta lagu shiday wax ku soo baranay waa ognahay dhibaatada ay leedahay xanuunka ay leedahay imtixaan loo diyaar garoobo sidaas daraadeed ma aqbali karno mana yeelayno sida ardada loo galay adika hadda muxuu ahay si wanaagsan ayaad ku soo gudbisay shucuurtiina meelo kaleeto oo idila mida muxuu ahay buuqa ka dhacay dhibaa ka dhacay ardada runtii dada ku dhaawacmay magaalada Beledweyne hadeertaanan idila hadlayno banaanbaxyo idinka kiina ka weynaa ka socdo mas'uuliyad darada intaas leeg iyo muxuu ahay ka warqabid la'aanta intaas leeg iyo go'aan qaadashada intaas leeg runtii waxay nagu tahay joorfal iyo xadgudub sidaas daraadeed si arrimahaas loo saxo ciidamada ammaanka oo Hirshabeelle jooga waxaan farayaa inay tixgeliyaan muxuu ahay xaqqa ardadu ay u leeyihiin inay shucuurtooda si nabadgelyo ku soo gudbiyaan kana ilaaliyaan wax alla wixii xuquuqdooda muxuu ahay ku xadgudbaayo idinkana waxa la idinka rabaa inaad ka warqabtaan oo aad iska celisaan qofkii idinku soo dhax dhuumanaayo oo raba inuu magaciina faldambiyeed ku geysto intaas waa ku filantiin Soomaa waxa kaloon farayaa dadka laga soo diray xamar oo imtixaanka loo soo diray oo Hirshabeelle ku sugan billahi calaykum hawshini waad gabteen meeshaad ka timideen ku noqda amnigiina iyo joogitaankiina dhibaato nagu yahay waad fashilanteen waad qaldanteen waa ilduufteen waa idinka hoos baxday meeshii aad ka timideen ku noqda wasaaradda waxaan leeyahay dambiga dhacay waa in la xisaabtan yimaado ciddii waxaas geysatay oo intaasoo dhibaato samaysay in wasaaraddii wali wax la xisaabtana aanan ka maqal qofaa cudurdaar ka bixiyay qofaa shaqada looga ceeriyay qofaa la xiray intaasba ma maqal waxaan rabnaa si degdega la xisaabtan muuqda oo ciddii dambigan geysatay lagu abaal marinayo oo ay ku qancaan waalidiinta oo ay ku qancaan ardada oo ay ku qancaan mas'uuliyiinta degdeg ayaan u rabnaa arrinta waxbarashada waxaan idin sheegayaa xanuunka idihaayo iyo dhibaatada idihayso waan maqalnay waxaan degdeg u magacaabaynaa guddi ka kooban ardada waalidiinta maamulka bahda waxbarashada iyo in alla intii muxuu ahay culamaa diinka in alla intii ka naxayso dhalinyarada iyo waxbarashadooda annagoo ka warsugayna guddigaas wixii ay soo saaraan hal shay waa idinka ballan qaaday maanta wixii ka dambeeyo waxbarashada ardada Hirshabeelle waxaa mas'uul ka ah dawladda Hirshabeelle waxa laga qabanayo iyo go'aanada la qaadan doonane waxay ka dhalan doonaan la tashiga aan la sameeyno guddigaas
sidii ay talo noogu soo jeediyaan sidii ardada u roon sidii mustaqbalkooda u roon sidii cadaaladu ku jirto markaan fiirino ayaan go'aan ka qaadan doonaa laakiin waxaan idin ballan qaadnay waxbarashada Hirshabeelle mas'uuliyadeeda Hirshabeelle iska leh wixii dawladda dhexe aan mataqaana ku amaanaysanay oo aan rabnay inay maxay naga kaalmeeyaan waa ku fashilmeen mana ka yeelayno mana ka aqbalayno arrintaas ku seexda ku dega ku qabooba waxbarashadiina halkiina ka sii wata go'aan degdegana waan naga heli doontaan insha Allah ta'ala